saarista khilaafaadka ama xalinta khilaafaadka iyo inta kale ee isku hawshay ee kala shaqaysay iyo inta mutacalimiinta ah intellectualiska diyaarisay waxyaalaha khuseeya qadiyadan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ama khuseeya wixii suurtagelinaya in qaranka uu ku guuleysto waxa uu ku talaabsaday qarannimadiisa ugu horreyn wadahadallada sidii la sheegay wax ka mid ah ilaa iyo awalkii mana sidaas darteedu baa waxa weeye telefoonka iyo si wax ka ku jirto wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxaan filayaa sidii ku bilaabeen oo laga wada warhayo page-ku wuxuu ahaa ama waxa laga duulay iyadoo laga duulayo himilada qaranka uu leeyahay ee koowaad oo ah in la helo ixtiraam oo la helo madaxbanaani kaamila oo dowladdu u ixtiraamsan tahay maadaama ay himiladeeda koowaad waxay ahayd siyaasadii madaxweynaha iyo xisbigiisa in albaab walba la garaaco oo la isku dayo in albaab walba oo suurtagelinaya in la helo ixtiraam iyo madaxbanaani kaamila in albaab walba la garaaco maadaama ay sabab tahay himiladii qaranka sidoo kalena ay siyaasadu tahay xisbiga iyo dowladda inuu hogaamiyo madaxweynaha aan waxa weeye ay wasiirkiisa madaxtooyadu waxaanu kaga qayb galay shirarka noocaas iyadoo ay page tahay arrinta noocaasi maadaama ixtiraafka sidaan carabka ku dhuftay uu yahay himilada koowaad waxaa inoo qorshaysnaa oo inoo yaalay inaynu fagaaro kasta oo suurtagelinaya inaynu ka kasbanno madaxbanaanideena iyo ictiraafkeena dowladnimo iyo qarannimo in albaab walba la garaaco shir walba la tago taas bay runtii salka ku haysay waxaana sidoo kale la tixraacay shirkii London ee dunida isugu tagtay inaan filayo 54 dowladood oo ay baaqi ka soo baxay warqadii February 2012 faqradda lixaad ay ahayd in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan si xal loogu helo yani xiriirkooda siyaasadeed si xal loogu helo waxa weeye inay wada hadlaan iyadoo taa laga duulayo ayaa shirarkii laga qayb galay wada hadalladii waxaa shirarka lagaga qayb galay sidoo kale meelaha London sida carabka lagu dhigay halkan UAE Ankara oo Turkiga iyo Istanbul oo Turkiga ayaa lagaga qayb galay degmada Afgooye iyo gudaha degmadaasi fatahaadu waxay sameysay qasaaro badan oo soo gaaray dadka ku dhaqnaa deegaanada uu ku fatahay waxaana dadkaasi ay ku waayeen guryo iyo xoolo wixii lahaayeen marquraye waxay sheegeen dadka degan goobaha webigu ku fatahay inay arkeen daad fara badan oo sameynaya webiga taasina ay ku qasabtay in xoolo iyo weliba guryahooda isaga cararaan isla markaana ay waxantii ay ka badbaadsan waayaan fatahaada webiga uu sameeyay maamulka degmada ee dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in intii tabartooda ay la dagaalameen si ay u celin lahaayeen fatahaada webiga haasaatee ay u taag dhig waayeen iyagoo sidoo kale ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka inay si degdeg ah gargaar bini'aadamnimo soo gaarto dadka webiga fatahaada uu ku sameeyay iyo waliba sidii loo xiri lahaa meelaha webigu ka soo fatahay maanta ilaahay ku arkayaan in webigii uu ku soo fatahay xaafadihii degmada oo doomihii la raacay wixii dhan oo kasal ka dhigay xataa guriyihii qaarkood laga guuray oo laga baxay marka waxaan u sheegaynaa hay'adaha internationalka iyo kuwa localka ah iyo dawladaba in ay degdeg u soo gaaraan dadka barakacay iyo dhulkii biyo wada qabsadeen haddii uu ku sii wadana uu dhibaato kale ka sii weyn u geysan karo waxaan u sheegaynaa caalamka in biyaha loo soo gurmado waxna laga qabto maadaama ay ku faafeen dhul weyn oo aad u weyn waxaan u baaqaynaa dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya United Nations hay'adaha internationalka kuwa localka kuwa ganacsatada waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood in ay ka qayb qaataan sidii loo badbaadi lahaa dadka Soomaaliyeed ee uu waxyeeleeyay fatahaada gobolka Shabeellaha Hoose